maanta warkii ugu naxdinta badnaa abid aa maqlo xamar wallahi so sad aan noqdaan ku dhan maqaayad gurigooda dukaanka inta kasoo tegay maqaayad dariskeena shaah ku soo doontay xamar gabadha hadda aan la sheekeysanayo xamar joogto markaasi waxay tiri abaa laba cunug oo yaryar aan haystaa shaqaan aadaa labada cunug markano mid 9 jira iyo mid ka yar waayo gabadhayda markay yariista 5 sano jirto gabar baa gabar isiisay tiri oo ii hayso ayadana waa gabar iska yar ana waxaan isdhahay waa iska yartaa markay tiri 14 jir 15 jir waa waxay tiri waa 9 jir halkaas ay xanuunta markaas ay 9 jir iyo 5 jir ay isku haynayaan markaas tiri ma hooyada iska duruufaysan waa iska kaysiisay si ay gabadha yartaa igu ilaaliso ayadana aan wax yariisa isaga tuuro oh my god والله بالله waxaan xasuustaa nimcada aan ku jirno iyo sida aan always enough aan ilaahay ugu xamdino waxa ay hor imaatay dad saan u nool ma jira yani waxaan maqli jiray Pakistan iyo India iyo ilmahooda yaryarka ah lacag ku bedeshaa ama dad ay siiyaan ama ya hadda arinta Soomaaliya ka jirta waxa kaaga sii daran taas gabadha waxaa ay ku dhici kartaa hooyadan say ilmaheeda ku siisay like dib jir maxaa waxay iska duufaysan yihiin وانا اغوان 3 cunug oo agoon haysaa gabadha bakaaraha ka shaqeysa walaasay ku taabo marka annaga dhan waxaan sameyn karnaa mataqaana ilaahay inuu nooga raali noqdo ilaa nimcada ilaahay waxa la yiraahdo quraan waxa jirta dhahaysa nimcada ilaahay ku sii xasuuso si aad dadka ugu naxariisato samayn aayadii oh my goodness qof kasta annaga nagmida maalin kasta $10 $20 $30 $50 waxa ku bixisaa macna daro laba cunug 3 cunug oo Soomaaliya joogto meeshii doonana ka joogaan responsor garee ilmahaaga haday shaqeeyaan ku qasab inay qof laba cunug responsor gareeyaan ama dugsi ama iskool ka bixiyaan nolol marka qof kasta hadaa hal cunug responsor gareey karto iyo hadaa laba responsor gareey karto iyo hadaa 5 responsor gareey karto ama dugsi ka bixin karto ama iskool ka bixin karto yaa ama biilkooda meel saari karto please ilmahaaga xataa wixii 15 ka weyn North America iyo Europe waa shaqaystaan waa ogtihiin especially North America $20 cunugina hadda ku qortid ayagana waxay u tahay sadaqo ilaahayna wuu ku badbaadinaa sadaqada waa lagu badbaadaay bar ilmahaaga dadnimay ka qaadayaan aniga kolba saasaan sameeyaa ayaan dirada iidii markii waxaan arkay waa nalo Falastiin lacag u aruurinayo oo isku dardareen mid baa inta dirtay waxay tiri kuwii kale waxay tiri if you guys match it ما عرفتي لعقتها أصيب بدني إذا بليز ماشي كل وقت وحارك ما زي واسكو درا جروب أو كجرنا واتساب كده. I was like wait a minute it's good إن فلسطين عاوزين like هاي صوماليا اللي بدي بعتيزيها صدق هذا مركب الصومالي وصادر يا مركب please and please إلهي سيد الله ون حريست عندك اللي تقولون حريصنا أنا وكبت بعدين صومالي ده تقول بيهن دولة حوجن أو ما أعرف دولة وحبذني قبضتها markay xooganta wax badan ay asturtaa dadka sharaftooda ay asturaysaa ma aragtay dadnimadaada ku asturan qofnimadaada ku hagaagsan marka dawladda laakiin waa iska dhibaataysan waqtiga dawlad adag maaha marka dibkii oo dhan baa iska badan qof kasta waxa laga rabaa inuu wadankii dib u xasuusto mana aha ma ku dhahay dadka faamintaada maalin kasta telefoonka ugu wareerinayo kuwaas maaha kuwa baahan kuwaas lacag baaday ka qaadaan kuwa baahan waa dadka runta oo meelaha kaaminka degan dhibaataysan dad oo ruux dhibaataysan ay jiro kuwa ku soo wacay they just taking advantage of you okay dadka 20 sano ugu dambeeyay ku soo wacay saraha magaalada ku yaal dadka iska leh waa ma baahno kuwaas okay kama muuqato waxooda ma baahno dadka baahan meelaha joogan Soomaaliya meel marka xabs ahaan waxa ay qorshaysan gabar walaashay xamar degan inaan gabadhaas ilmaheeda raadi aan dhaho aan responsor gareeyo insha Allah ay soo duceeyay idinkana waxa idinku sheegayaan wax kale tamaam ina idinkan idin encourage gareeyo ay idin diirra geliyo platformkeega meesha dadka badan ugu xiran yihiin oo uga faa'iideystaan idin xasuusiyada khayrka waa la xasuusiyay gabadhii dhahaysay 9 jira ilmaha 5 jirka ii haayeen ayadana aan dhaho abaaya qof roona ilmaha ku hayn kara soo raadsana ka bixinayo lacagtaas ya intaas ay qorshaysan insha Allah ay hope ma aragtay inaan khayrka isku dardaarano insha Allah marka waa idin salaamaya love you meeshaan murugla soo fadhiistay waxaan dhahay ilaahayo sida iigu naxariisatay yaa inaad dadka ugu naxariistay ii kas wallahi safadeedaan soo xasuustay she's 10 years old maanta cuntada lagu baryayo ficilna waa shaqaynaya how sad is that yeah alxamdulillah